صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشر كمان تأنقاذنا وحكم دي هاي تحنيهني نفقد درت أباهن تهاي ما توهم برننا بعرمية كسين تعلمها. لغة عربية وحلوير هذا التسميد الورقي إنجليز كنا وحلوير هذا foliar fertilization ومحي بعرمية كسين تعلمها foliar fertilization محلو لجيدا بعرمية كسين تعلمها وحلو لجيدا إن بعرمياشا أو بيا لغو ميلي لغو بوفيو علمها ديرتا دلقيادا سي أو هلو نفقادا كجرتا بعرمية كسين تعلمها waxay ka mid tahay calaamadaha muujinaya calaamadaha muhiimka ah ee muujinaya horumarka beerashada casriga ah. daraasado badan oo la sameeyay ayaa waxay muujinayaan in dalagyada kala duwan iyo geed miroodkaba dhammaan nafaqada xididada ay ka nuugi jireen in ay ka qaadan karaan caleemaha iyo qaybaha kale ee geedka ee dhulka ka sareeya haddii lagu buufiyo ama lagu rusheeyo. sidoo kale waxay daraasaduhu cadeynayaan in marka dhirta curiyayaasha nafaqada ah laga siiyo caleemaha inay ka waxtar badan tahay marka xididada laga siinayo. waxtarkeeduna wuxuu dhirta uga muuqanayaa si dhaqso ah 2 ilaa 3 beri. goorma ayay lagama maarmaan noqotaa in dhirta caleemaha laga siiyo bacrimiyaha? goorma ayay lagama maarmaan noqotaa in dhirta caleemaha laga siiyo bacrimiyaha? bacrimiye kasiinta caleemaha waxay lagama maarmaan noqotaa marka dhulbeereedku cillad leeyahay taasoo yareynaysa awoodda xididadu u leeyihiin inay soo nuugaan nafaqada ku jirta carrada isla markaana dalagga ay ka muuqato in curiyaasha nafaqada ah qaarkood ay ku yar yihiin. cilladaha keenaya waxaa ka mid ah 1 heerkulka carrada oo hooseeya. carrada oo calcium carbonate-ku ku badan tahay. haddii carrada cusbadu ku badan tahay, carrada oo base noqota ama carrada oo acid noqota. maxay ku fiican tahay in dalagga bacrimiyaha laga siiyo caleemaha? 1 ka faa'iidaysiga dhirta ee bacrimiyaha laga siiyay caleemaha oo aad u sareysa. 2 waxay dhaqaaleynaysaa bacrimiyeyaasha oo in yar oo bacrimiye ah ayaa ku filan geedka ama beerta. waxaa lagaga gudbi karaa cilladaha carrada ee keenaya in dhirtu ka faa'iidaysan weydo nafaqada ku milan carrada. 4 dhaqso ayay u gaarsiinaysaa dalagga nafaqada ka dhiman. fulinta bacrimiye kasiinta caleemaha oo sahlan. macnaha fulinta waxaan ula jeednaa in beerta caleemaha laga siiyo nafaqada ayaa waxay ka sahlan tahay in siyaabihii kale loo siiyo. marka dalagga bacrimiyeyaasha laga siinaya caleemaha waa in la tixgeliyaa qodobada soo socda. 1 waxaa bacrimiyaha lagu buufiyaa beerta subaxa hore marka dhedadu ka dhacdo. dheda waxaan la jeednaa qoyaanka caleemuhu marka uu ka dhaco dalagga. xilligaas waxaa furan duleelada caleemaha dhirtuna si fiican ayay u nuugaysaa nafaqada. 2 ha buufinin beerta iyadoo markaa la waraabiyey ama roob da'ayo ama beertu aad u qalalan tahay. 3 waa inaad ilaalisaa xaddiga bacrimiyaha iyo waqtiga munaasabka ah ee dalagga. badanaa waxay ku qoran tahay weelka bacrimiyuhu ku jiro dushiisa. milanka aad ku buufinayso waa inuu noqdaa dhibco aad u yaryar sida ciiryaamada oo kale. waa inuusan noqonin dhibco waaweyn oo caleenta ka dhacaya. macnaha caleenta dhibicda weyna caleenta way ka gudbaysaa laakiin dhibcuhu markay yarina caleenta dul fuulayaan caleemuhuna si sahlan ayay u nuugayaan. qodobka 5 bacrimiyaha marka hore ku mil weel gaar ah kadibna ku shub haanta aad ku buufin doonto. waana in si siman loo gaarsiiyaa dhammaan qaybaha geedka kor ilaa hoos. 6 waa inaad maanka ku haysaa marka aad buufinaysid beerta inaad dhinaca hoose ee caleemaha aad u gaarsiiso bacrimiyaha waayo duleelada ugu badan waxay ku yaalaan dhinaca hoose ee caleemaha. 7 waxaa habboon in bacrimiyaha dalagga lagu buufinayo inuu ahaado keligii oo aan lagu qasin wax kale. haddii beerta sun lagu buufiyey
ha ku buufin bacrimiyaha ilaa laga dhaafayo 3 maalmood. waa inaad isticmaashaa biyo ku habboon buufinta bacrimiyaha, isla markaana cusbada biyaha ku jirta waa inayna ka badan 500 oo ppm parti per million ayaa loola jeedaa. 9 waa in la tixgeliyaa baahida geedka u qabo curyo gaar ah, oo matalan waa inay ka muuqataa in curyo gaar ah ku yaryahay geedka, marka curyahaas ayaa si gaar ah loogu buufinayaa. aad baad u mahadsantihiin. casharkeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. jazaakum allahu khayran. waxaan leeyahay haddii aad wax uun ka faa'iiday fadlan ha naga iloobin inaad subscribe page-ka tidhaahdid, inaad videogana aad tidhaahdid like si uu u gaaro asxaab fara badan. mar kale ayaan idin mahadcelinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.